السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دردشة قيمة إيه قاياها الله عاود waxaan klibkan aan u duway waxay tahay xalay anagoo aan fiirsanay tiktokta waxaan arkay mid leh xiligiisaad bare salaad lama dukan jirin maasha allah dad khayr ilaahay siiyo ilaahay ana soo hanuuniyo horta anagoo yar waan xasuustaa 7 jirkii 8 jirkii dugsiga marka waxaan la geey jiray anko 3 sano ciyaalka Soomaaliyeed badanaa 3 jir 4 jir ayaa dugsi lagu geeyaa 7 sano markay jiraan maasha Allah quraanka ay ku xaafidsan ama quraan oo waxay yaqaaniin ay noqon jireen iskuul la geyn jiray iskuulkana waa jiray iskuulka hore iskuulka ka dugsiga ka bixin oo waxba baranin hada jus amado gaarin iskuulka lama geyn jirin ciyaalka marka ilaaha ma had iska leh salaad waan dukan jirnay salaadii waana la tababaray anagoo yar 8 jir 7 jir meelaas aan nahay tababar lana siin jiray macallimiinteena ilaahay oo naxariis khayr ilaahay siiyo wayna tababareen siyaad wax salaad iska hadlay salaad meel dugka ka jiro meel ay ku qortay meel ay ku hadlay ma jiro marka waxa walaalayaal warda fiican ilkaaga cad in lagu wacay waa qalad ceebna geelana waa la ogyahay marka hadda waxaan siyaad bar ugu jiraa aan hadda waxaan xasuustaa 8 iyo 6 miya 8 iyo 7 meelaas inay tahay jeclahay hal nin oo la xiro waa jiraan oo salaad masaajid galay la xiro waa jiraan sababta loo xiray maxay ahayd kabis buudka uu wato oo masaajidka loo galay markaas siyaad bara dawladdu way qabatay way xukuntay dil laguma xukumin laakiinse xabsi lagu xukumay halii taayna ma sheegi karo ninkaasna way dhacday markii oo dadka muslimiinta oo isku sheegayeen ahayd qaar muslimada iyo waxa oo hab khalad u fahansan diintaba oo si kale u fahmayaan jiraan oo si ay rabaan u isticmaalayaan hataa sheekhyashan ay hay jawaaban adoo buudka wadatid ama hataa saanta la noqdo ama dacas ha noqdo masaajidka ana la gashid oo ku tukatid ma jiraan kaas waxaan ka sugayaa jawaabta culimada diinka muslimiinta ka waajiraan lagu tukan karo waa markaad meel oo safar ku jirtid oo meel oo bacaad leh oo ciid oo dhulkan aan qoynin kawaaga ana ku istaagtid hada kawaana ku jiraan ma kawaa siiween ku istaagtid ku tukan ka jirtid oo la sheegay ina salaadka ka ansaxayso laakiin kawaa adoo kugu jirta meesha bacaad ku tukan ka jirtid kawaa waa ina siita oo ku dul istaagtid kaas waa la sheegay laakiin masaajid kawaa lagu tukanayo ma arkin mana maqlin hadan sheekhyashan inay faa'iideeyaan waan jeclahay adduunka cilmiga ka dhamaato cilmiga way barantaan cilmi saas aan malihin waxaan jecelnahay wixii aan aragna wixii aan maqlnaa sheegnaan jecelnahay marka walaalayaal horta siyaad bar ilaahay oo naxariisto ma salaad soo diida ama la dukan karo u dhahay ma jiro nin walba salaad waa la dukan jiray masaajid marka u yaraan meeq masaajid ku yaala taa xisaab ado khondan way gaaraysaa soo umaleynayaan xamar waa kasii daran tahay dhaaf way xamarna ay ku taal masaajid wixii xasuustaa meesha aan tagay meelaha kale aan tagay qornyoole oo kale hadda micsan xaran duumbara loo tuuleer loo masaajid ku taala aan ku argay waa tuuleer duumbara la jiray qornyoole ma masaajidkiis ma xisaabi kari badanaa waan tagay awdhiga waan tagay kismaayo saas oo kale waan tagay laakiin ma xisaabi kari masaajid badan oo ku taale wax salaad laga joojiyay am salaad ma dukarta la dhahay waxaan weligeen ma aan maqlin wax salaad igu joojiyeen ma arkin dad salaad lagu joojinayna ma arkin marka walaalayaal waxyaala aan sheeganayna waxa wanaag oo noo fiican runtii aan sheegnaa noo fiican waxyaala oo beenta awaawulka aan iska dhaafno si aan u bixi lahayn wanaaga adduunyada iyo aakhiraba aan isfarno walaalayaal